dadweynaha meheradaha kaga soo jeeda tiyaatarka dhinaca bari ee magaalada Hargeysa ayaa ka cabanaya Maayir Cabdikariin Axmed Mooge oo muddo sanad laga joogo wadadani sidan u galay dadweynaha meheradahan leh ayaa sida fiidiyowga aad ku aragtaan waxay ku qabaan dhibaato dadku meel ay u soo maraan ma hayo gaadiidka alaabta u sida ma hayaan meel ay uga soo tallaabaan iyadoo oo meheradahoogii laga hor qoday god aad u dheer aanay dadkuna ka soo gudbi karin oo sidii micno dooxa dawladda hoose ayaa baryahaasiba ay dadkaasi u dacwo tagayeen iyaga oo aan wax dawladda hoosena garowshiya ka siinin haddii ay wax ka qabta isiraahdaan oo meel bal alaabta leedii ka roga samaystana ganaax loo qabanayo dadweynahan oo sanadkii u dambeeyayba cabasho weyn ka muujiyay sida sheegeen dawladda hoosena ay ganaaxun kula soo cararaysa haddii ay wax ka qabtaan haddaba dadka meheradahan leh ayaa ku dhiban waxaana loo baahan yahay in maayirka caasimadda Hargeysa ganacsatada dhibaatada lagu hayo iyo dawladdiisa hoose ay ka daayaan iyaga oo dirineejadan waaweyn ee qaldan ay ka sameeyeen ay macalbiyihii ku istaajeen halkaasi oo looga baqayo in xitaa xanuuna ka dilaacaan dadweynihii meheradahan lahaa ayaa iyagu albaabada u xiran tahayba meel loo soo marana aanay hayninba duqa caasimadda oo kamaradaha aad ku barateen ayaan isaga halkan goobtan oo u jirta 200 mitir aan kaba soo daahirin bariyihii u dambeysay oo dadkani ay had iyo jeer aad uga dacwoonayeen hadday noqoto degmada iyo hadday noqoto maamulka dawladda hoose ilaa maayirka ay gaadheen maayirka caasimadda ayaa la sheegayaa inuu yiri iska hagaajiye kadib markii uu ninkii ugu horeeyay meherada uu yiri iska hagaaji ganaax dabada loo qabtay ganaaxaasi oo aanu qaadi karayn isaga oo muddo saacadaana ku xidhnaa xarunta degmada gacan libaa